السلام عليكم أصحابتا دونيدا عصب جنال سلام سومالي تكنولوجي لو بدلت دونيدا عصب جنال أصحابتا كسو دوادا جنالك عندي أتقع عصبتا ولا سبسكرايب نوسا لايك شير كومون المدة وان كمقنا جنالك اسكوكتين مشغول كيغاس كبدان iyo shaqooyinkii kale soo waqtigan jaan soo helo waan soo galaa waqtigan jaan soo hayno waan ka maqnaadaa marka asxaabta yana la qabanin halkan waxaan ugu mahadcelinaa asxaab badan oo micnaha maalin kastoo ila soo hadasho ugu dhahdo walaal janaalka micnaha muuqaal noo soo dhig asxaabta aad baan u mahadsantihin adinkana maadaama igu dhiirigelisaan janaalka muuqaal aan soo geliyo asxaabta casharkiina inoogu dambeeyay wuxuu ahay object oriented programming oo loo yaqaano OOBS so six conceptiga object waan soo qaadanay glass waan soo qaadanay waxaad inoo bilaabayaa numberkii saddexaad abstraction okay iyo encapsulation then waxaa noo dhinaanayso polymorphism iyo inheritance then casharkaas waan ka dhamaanay haddii objectii glass aan soo daawan muuqaalkaas please youtube-ka hoos uga muuqaalkaas linkigiisa hoosaan kusoo dhiga haddii kale janaalka ka dhexday waad ka heli okay asxaabta waa maxay abstraction sidaad u jeedaan abstraction micnaha qeexitaankiisa aniga wax walba waa soo koobay meeshaan adigu soo diyaarshay micnaha powerpoint-iga adigu soo habay as practical ahaan waan idiin siinaa theoretical ahaan waan idiin siinaa wixii kale aniga maskaxdayda ahna waa idigu siyaadina adiga micnaha idigu dhaano so asxaabta abstraction micnaheedu waxa waaye showing only essential parties and hiding the implementation details so micnaheedu waxay tahay waxyaabaha muhiimka ah unbuu ku tusayaa wixii kaleetooda faahfaahin ama implementation ahna uu heading gareynayo micnaha hide buu ku sameynaya for example waxuu soo qaatay android application-ka dhammaanteen asxaabta android application wada isticmaalnaa haddii aanad isticmaalin soo isticmaasha okay ama iphone baad isticmaashaa same so waad aragtaa abk waa abk file oo kale waad meelaha micnaha markaad isticmaalaysa applicationaadka abk file axe execution file so waxyaabahaas dhan waad aragtaa okay execution file ama abk file waa micnaha wax simple oo micnaha fudud balse shaqooyinka qabtaan unbaa lagu sheegaa laakiin qaabka u qabtaan laguma tusahay okay waxaa kaloo example ahaan usoo qaadan kartaa waxaa example ahaan usoo qaata for example gaariga kaleetood so wuxuu leeyahay maana meel oo furaha laga geliyo laga kiciyo okay furaha unbaa gelinaya dhag islaamkii dib abagu starting buu sameynaa uu kacaa maano laakiin ma ogid marxaladaha iyo siyaabaha uu maray qaabka uu ku kacay keliya waxaa lagu tusay in micnaha furaha meeshan gelis oo kicinaysa so معناها I think إن ديلا فهمتين وحوين showing the essential parties and hiding the implementation details okay for example application أو كلا تضع شيء صار كلا جوجل كلا شيء جوجل كبار وحوي دي شيء page كان أو حكوي ديني شيء just simply ماشي أنا كلا تضع ماشي جوجل كوحبة إسكير دقيقة لكن ماشي أو حكوي دي شيء معناها شغوين كلا قبل البرنامج أو لقصة دي page kan programka lagu dhisay dhan ugu laakiin just waxa ku tusaa meelahaas micnaha muhiimka ah loo baahan yahay laakiin shaqooyinka qabta kuma tusaa I think asxaabtina aad ila fahanteen so waxay noo waxigo encapsulation numberka afraad so abstraction micnaha ayada ma lahan waxa example leh ma lahan laakiin waa fahmi kartaa kullit okay marka programka si dhex gasha si dhex fahmi doontaa laakiin micnaha waxa weeye micnaha inaad wixii muhiim ah lagu tuso wixii kale toona micnaha detailsna micnaha hide lagu sameeyo okay encapsulation asxaabta encapsulation micnaheedu waxa weeye binding variable and methods under single unit entity sorry under single entity micnaha waxa weeye hadda soo qaadanay waxa weeye objectiga okay faacitaankiisa kale waxa weeye encapsulation is like a capsule example kan also qaatay the whole code and data is bonded together into single unit okay saad ku taqaaneen si language ama si balas oo kale tood micnaha daatada ama waxa naqaana daatada sa u taqaanid ama variable ama sa u taqaanid properties iyo methodka waasna u taqaanid function ama task waxa la qabanayo shaqo la qabanayo iyo variable oo micnaha wax oo micnaha magac ah sa u taqaanid hal meel lagu mudan dhigo laba meel oo kala duwan lagu dhigaa laakiin object oriented wuxuu ka saacidaa labadoodii buu hal meel isugu keenayo micnaha hal oo glass baad ku dhex dhigaysaa awooddaas buu leeyahay so encapsulation waa kaasa marka casharkeena maanta abstraction wax oo practical ah ma lahan ba laakiin micnaha waa fahankaas uun laakiin encapsulation waxaan isku dayaa inaan micnaha practical oo micnaha kan ugu fudud oo qofka bini'aadamka uu ku fahmi karo inaan idin siiyo
so let's go to Eclipse ma isticmaalaha yani Eclipse adiga maybe waxa laga yaabaa inaad isticmaashid idea intel idea ina isticmaashida macquul ina applicationaad kale isticmaashid laakiin waxa isticmaalaa always Eclipse so Eclipse hadda waxaan isticmaalaa last version Eclipse waxaan isticmaalaa GDK jaafaha last version waxaan isticmaalaa maxaa la last version waxaan isticmaalaa oo 15 so sidoo ku ogaanay versionkaada wuxuu yahay waxa leedahay Java Chrome waxa soo fuunay commonka Java leedahay Haven version so inta baad leedahay waxaan isticmaalaa 2020 October kii ugu dambeeyay waxaan lahaa versionkiisu waa 15.0.1 waa latest version faint waxa la soo saaray 15 waxa la soo saaray 2020 bishii 10aad 20keedii so asxaabta haddii aad u baahan tahay inaad la soo degtay kan installationkiisa iyo downloadkiisa insha Allah commentiga noogu soo dhig waan ka caawinayaa oo muuqaal baan ka soo sameynaa asigana so maanta micnaha qof walba applicationka micnaha sida loo furo project iyo package loo sameeyo class name loo sameeyo uu yaqaana waxaas micnaha dad basic ah batiin dad almost advanced batiin so package-kayga waxa weeye demo.code java class public class demo 15 ama main waxa doonta ka dhigaadi just magac un ka dhig second class-kayga waxa waayin employee so code-ka ay noo bilaaba for example waxaan leenahay employee maxaa ku taqaanaa employee qofka shaqaalaha magac buu leeyahay soo ma ahan so waxaa leedahay string istogboodana capital noqotaa string name okay waxaa leedahay id buu leeyahay maana qofka shaqaalaha so waxaa leedahay inti id semicolon waxaa kaloo leedahay inti lacag buu qaataa Soomaa free kuma shaqeynaa social media baad gelinay okay so hadda intaas ma inoo soo qaaday so waxa imaanay main class-ka markaad imaato waxaad leedahay object-iga baa inoo sameynaya so object-igan waxa leedahay class-keena muxuu ahay employee ahay Soomaa so always saan idin sheegay macnaha object markaad sameynaysid maxaa ka sameynay object is an instance of class so object class host-ka always so class-ka baa inoo soo qaada employee dul qaata asxaabta micnaha hadii computer-ka waxa ka halaa micnaha keyboard-ka micnaha qaybtii hoose 15-kii ahaa baa shaqeynay so employee equal new employee so semicolon so object-iga baa hadii noo sameey baa noo soo qaada dot sababku keena soo muujidid okay name-ka ku dhufanaa name equal waxa leedahay ka bacdi for example magacayga baan gelinaa kulay taana meesha joogo ma ana meesha ka taliyo salaad muse okay then semicolon waxa leedahay dot id so id-ga qofka shaqaalaha waa inaad gelisaa asigana equal waxa weeye maybe 155 oo kale to semicolon so waxaad gelin hadana dot asiga waa ku soo qabanay waxaad dhahdaa salibay so asigana salibaygiisa maybe waxa weeye qofka shaqaalaha ilaa adiga waxaas ka dhahdaa 1000 midka lacagta ku badin dee dadka waska masaakiin afrika bay joogaan so waxaad leedahay 1000 then hadda waxa micnaha waa initialization baa ku sameeyay micnaha value baa siiyay so hadda waxaan sameynaa micnaha output-kii baa sameynaa so waxaad leedahay system dot out dot print okay waxaad gelinay ka bacdi dot name okay dot name so name capital waa inaad ka dhigtaa inta dot name kan baan ku biisaa control c waxaan ku bedelinaynaa id again copy waxaan gelinaa salary so codka rangareyn asxaabta saad u jeedaan meesha waxa soo baxday magacayga salaad muuse id-ga 155 qiimaha lacagta salary waxa weeye 1000
haddaba micnaha danta laga leeyahay maxay tahay encapsulation danta laga leeyahay hadda koodka marka u jeedi micnaha kood oo nafle maahan oo micnaha kood oo fiican maahan sababtoo ah daatada hadda waxay tahay public okay your data is public waa hadda so daatada haddii public ay tahay ani micnaha meel kastoo laga kici karaa micnaha ani web waa laga isticmaali karaa so micnaha daatada safe ma ahan so encapsulation wuxuu micnaha ku sameynaa for example daatadeena private baa ka dhigaynaa okay private aan ka dhigaa private sidoo kale private okay daatada hadda markaa private aan ka dhigo saad u jeedeen waxaa imaanaa galaaska main galaaska saad u jeedo uu diiday soo ma jeedid wuxuu dhaha markaa weydiiso waxaan sameynaa wuxuu dhaho okay saad u jeedin uu diidan yahay wuxuun dhihaa micnaha the field employee name is not feasible micnaha daatadaada haddii ay private ay tahay micnaha ma la isticmaali awood muu lahan in micnaha galaas kale oo daatadaada uu soo kixiyo so maxaan sameynaynaa marka daatadaada iyadoo private ku sida loo isticmaalaa oo adiga le aad u isticmaashaa waxaan sameynaa waxaan isticmaalaynaa wax la dhaho getters and setters okay setters and getters micnaheeda maxay yihiin okay waa wax fudud waxaan sameynaa galaaskiina baan ugu soo celinaa galaaskaad imaane getterska setterska inta dhigi lahayd xitaa micnaha almost applicationka lagu sameeyo waa lagu fududay waxaa sameynaya right kaliya ku siinaa waxaad imaanay meeshan oo source-ga ku taalo generate waxa leedahay generate ka imaanay saad u jeedin meeshan getters and setters ku taalo soo kaliya waa ku siinaa okay dhammaan tigta noo saaray ID-ga name-ka salary-ga then waxa leedahay continue okay saad u jeedin uu noo soo qabtay hadda waa kana code-kiini uu noo keenay okay waa kana get name set name get ID set ID inta code kan dhigi lahayd macnaha code kan code badan waa inta dhigi lahayd macnaha waqti si lumin lahayd generate ka taga generate ka bacda siga ku tusaa setters and getters kaliya ku siina kadib tigta soo wada saaray kadibna continue bade hadda waa kana xidmaanay marka ka bacdi main class ka imaanay main class marka imaad waxa sameeynaa kuwan waxa ku bedelaysaa get dot sameynaa get name aan leedahay get ID sidoo kale get salary initialization ma u sameeyaa asxaabta okay maxaa qaldan meeshan get name Salaad Muuse waa inaa meeshan ka gelisaa double quotation waa inaad gelisaa get name get ID sorry get hadin set oo anaa qaldan asxaabta waa inaad dhahdaa set qanaa sameynaa debugging okay saad u jeedaan asxaabta waa kaasaa name Salaad Muuse ID 155 salary 1000 okay saad u jeedin marka micnaha meesha wax naga saaciday saad u jeedin micnaha meesha wax naga saaciday get and setters wax naga saaciday daatadeeni oo private ka in micnaha aan ku shaqeyno because daatada markii ay private ay tahay public haddii micnaha aad ka dhigato micnaha function methodka hadduu public yahay waad ku isticmaali kartaa micnaha outside of the class saad u jeedin class kala ku isticmaalnay asxaabta I think inaad fahanteen haddii aad fahmi wayso muuqaalka 2 ilaa 3 jeer ku cesho iskuna day inaad fahanto wixii kale aad fahmi waysana wala commentiga inoogu soo qabo waxaad fahmi wayso insha Allah muuqaal baad iga soo sameynayna tan kale asxaabta channelka da ku cusubtay subscribe saar hadda waxay noo dhiman inheritance iyo waxay noo dhiman casharka lagu magacaabo inheritance iyo waxa noo dhiman polymorphism ayagana إن شاء الله مقالك الحقيقة أيام كسر سميد وانا أسبوعا أصحابته وكاسا welcome من صولة أصحابته وكاسا